taliyaha guud ee ciidanka damdamiska qaranka ee Soomaaliland Axmed Maxamed Sawaaxili iyo gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Berbera ayaa maanta kaga qayb galay garoonka Cabdalla Stadium ee magaalada Berbera imtixaan laga qaadayay dhalinyaro u tartamaysa inay ka mid noqdaan ciidanka damdamiska qaranka ee gobolka Saaxil waxaana ku wehelinayay taliya Sawaaxili qaar ka mid ah macallimiinta ama ciidamada damdamiska Soomaaliland ee fadhigoodu yahay magaalada Hargeysa kuwaas oo imtixaanka ka qaadayay dhalinyaradaasi u tartamayay inay ka mid noqdaan ciidanka damdamiska qaranka ee Soomaaliland gaar ahaan kuwa ku sugnaan doona saldhigga Berbera waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Berbera mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin oo isagu hadal dardaaran oo dhinacyo badan taabanaya u jeediyay dhalinyaradaasi u tartamayay inay ka mid noqdaan ciidanka damdamiska qaranka Soomaaliland halkan waxayna hortaagan ciidan dhisan oo quruxiisa iyo sharaftiisa iyo haybadiisa iyo karaamadiisa baa halkan dheenu waday ay ku doogsanayaan inaguna hadaynu reer Berbera nahay waxaan doonaynaa inaynu kuwan in hortaagan oo kala noqono haddii aan markii hore ahaan jirteen dabdabisku aan jireen heer degmo iyadoo degmadu mar walba roolkeeda leedahay iyo mas'uuliyadeeda haddana waxay soo diyaarinayaan inay noqdaan ciidan qaran waxaanu halkan waxaan u garanaynaa anagu inay ciidankii yihiin jamhuuriyadda Soomaaliland maxaan ku dhahdaa umaan u garanaynaa macataliyahooda halkaa dadka dhalinyarta fadhidana waxaan u garanaynaa in dhalinyarta reer Berbera inay yihiin doonaya inay soo baxaan oo ay shaqada Ilaahay subxaanahu wa ta'aala cid u qoray inay ku soo baxaan haddaanu cid jecel nahay iyo haddaan cid danaynayno taliyahana ma yeedhaneen ciidana ma yeedhan idinkana ma yeedhaneen intaan isku xaafadanahay baan qoran lahayn waxaa la doonayaa dadka reer Berbera dadkii ay ku nasan lahaayeen ee u adeegi lahaa oo dhisan in la helo haddaba dhalinyartaankan hor joogtaa maxaanu ku xulanaynaa maxaanu ku jecel nahay kan jecelna waa kuma kan xulanaynaana waa kuma waxaan xulanaynaa shuruudaha imtixaanka halkan yaala ee ciidankeenu inoo qaadno ciidanka damdamiska inoo qaadi doonaan horta ciddii buuxisa oo sida ay u qoran yihiin u buuxisa waxa raacay imka dhammaantiin la kala garan maayo laakiin akhlaaqdu waxay bar ka tahay nolosha ka bar tahay waxaan kugu xulanaynaa akhlaaq waxaan kugu xulanaynaa aqoon waxaan kugu xulanaynaa caafimaad qab waxaan kugu xulanaynaa karti anaga qabiilkayga intaasaa la yidhahdaa reerkaygana intaasaa la yidhahdaa ninkii taa buuxiyey maan xasuunahay taliyaha guud ee ciidamada damdamiska qaranka Soomaaliland Axmed Maxamed Sawaaxili oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa kula dardaarmay dhalinyaradaasi u tartamayay inay ka mid noqdaan ciidanka damdamiska Soomaaliland inay u dhabar adeegaan imtixaankan iyo waliba tababaro kale oo loogu qaban doono magaalada Hargeysa marka ay ka baxaan imtixaankan maanta loogu qabanayay magaalada Berbera maanta Berberi waa maalin cusub waxay ugu cusub tahay shaqo aan hore u jirin iyo cilmi aan hore u jirin ayaa maanta la bilaabaya idigoo kaliya maahe qoladana dharka caadada aad aragtaanna maalmoonba sidiin ahaan jireen laakiin dadaal baa lagu keenay waxaan oo dhan marka maanta waxaa arki doontaan gobolladoo dhan iyo aasaaska dabdamiska waa sidii lagu bilaabay maaha wax idin gooniya imtixaankan physicalka way wada mareen theoryga way wada mareen xagga shaqadu way cusubtay waa shaqo aan hore loo arag waa shaqo adkaysigeeda rabta waa shaqo akhlaaqdeeda rabta waa shaqo wada jirkeeda rabta team work baa lagu shaqaynaya haddaad dabdamis maqashid waa ciidan meel ka wada dagaalamaya hadduu mid yaro liico amba mid shaqada yaro xumeeyo tiimkao dhan baa liicaya marka team work ayaa lagu shaqeeya sharci adag baa yaalla iminka waa iska jira ninka jaad cuna shaqadan ma qabanayo haddii jeer shaqaale markaan qoranayno anigu jaad ma cuna yidhahdaan hadhowna way qarsadaan haddaad lagu qabto waa lagu ogaan doonaa maalin baa lagu ogaanaya haddii lagu ogaado ciidan baa tahay maxkamad ciidan baa lagu saaraya lagu sii deen maayo maxkamad ciidan baa lagu saaraya sigaar lama ogolaa salaad la-aan lama ogolaa marka meel walba xero walbaa tagi doontaan masaajidadii baa dhisan yihiin macallimiintii qur-aanka waa kuwa nala socda oo dhowr sheekh baa jira cilmi badan baa baranaysaan Maxamed Cabdilaahi soo fadhiistay Star TV magaalada Berbera.